malaynayaa dee intii la odhan lahaa ee xilwareejintan isukaan keentay maanta waa la yidhi qolyihiina wax sawiriya dadka inaan aragnaan jecelahay iyanana arkaana baldhanu nooga bayda anoo markii horeba aan dheerayn iyo niman halkan oo dhaadheer oo soo xulay hadhkoodaa bay qariyey waxaan jeclaan lahaa 2-3 qodob midba inaan wax ka idhaaho middan abaarta ina haysa ilaahay haynaga dulqaado ilaahay isagaa qaniya ilaahay waktigan ina haya waa laga yaabaa dadkii hore ee waaweynaa inay 80 guuro iyo waxyaalaha ay ka hadlaan kulley ilaahay markuu doono isagaa qaniya isagaa bixiya waana ka baryaynaa laakiin waxay u eg tahay wakti adag inuu inagu soo fooleeyahay haddaan ilaahay raxmaadkiisa isagu inala soo gaadhin ugu yaraan 4 bilood oo hor leh yaa inagu soo wajahan bishii ugu horreysay yaynu aragnaa culayska ina hayo 4 bilood oo waagii xukuumaddii maxamed siyaad barre ee dhulka joogtay ruushkuna uu ahaa dalaan la saaxiibnahay abaartii 4-7 ilaah baa wax inoo badbaaday laakiin sabab wuxuu uga dhigay dowlad jirtay oo danaynaysay ummaddeeda meel kastay joogaan inay wax u qabatoo badbaadiso oo waxa yara iyada ama hesho ee dibad looga keeno ama iyada lafteedu ayba heshaba ammaanadaa gudbin jirtay oray ma filayno xukuumadda hadda xamar jirta wixii laynoogu soo dhiibaana inuu ina soo gaadhi doono meel kale oo laynoo soo mariyaana waa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahaan dee maxaa meelahan dekedaha iyo leh ee mucaawanooyinka lasoo mariyo maxaa loola hadli waayey war waa la hadlaynaa war waxaan jecel lahay hadday puntland yihiin iyo hadday somaliland yihiin waray mushkiladana waa nagu wada habsatay war inaynu arrimahan meel uga soo wada jeesanay waxaan jeclahay sidii guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegayay dadka soo guurtada ah ee weliba sool iyo sanaag iyo caynaan u dhalan ummadeennu dadkeennu waxay runtii tuseen gobonnimo isxilqaan islaamaan ka maqli jiray adaan hadhsan ma lagu hadhgalay dadku iyagoo kuweennii hayn hadhsan yaa loo soo hadhgalay waana runtii ragannimo iyo dadaal baa la sameeyey dhibaatooyin dhacayna waaba jiraan dhibaatooyin laakiin la odhan karo mu'aamarada iyo waa la tashaday iyo may ahayn haddii waxaasoo ay dhaceenna dadkii ay ku dhaceenna waa looga tacsiyeeyey diyaar baana loo yahay wixii dhacay ummaddaas wixii xaqa in laga mariyo beesha khaalidna si gaaraan rabaa halkan inaan uga mahadnaqo ugu bogaadiyo ninkii wax dilay hadda xukuumadi ma soo qaban xukuumad inoo jirtaa oo wax soo qabanaysa oo awooddaa leh ma aha dadkeenna iyagaa isxilqaamay hadda kuwii laga dilay iyagaa u tegay iyagay haddana u ballansan yihiin war ummaddan ilaah baa dhulkan wada dejiyey hadday dhibaatooyin noocaasu dhacaanna awalba iyagaa ka heshiin jiray war dhibaatada maamuladaa siyaasadeeyey oo waxa dadka dhex yaalla maamuladaa keenay ciidamadan udubka la socda iyo siyaasadda ka dambaysa hadda dadkan soo guuray iyaku ma ahayn siyaasaday wadaan oo waa arrimaha ay tahay taariikhduna waa isqoraysaa war dadkan haddii ay dowlad
iyo xukuumad talo iyo wanaag iyo deris wanaag ay helaan ummaddan oo iyagaa heshiin kara wixii fidno ee yaree dhaca iyakaa yaqaan boqolaal sanay dhibaatooyinkaasu jireen iyagaana xal u heli jiray war bale intaynu haddana nimankaa khaasatan soo guuraagu un maaha qolyahan xaggan ama waqooyiga ama inaga xiga soo guuraagu meelo badanna waa ka yimi ilaa ballacad waxaan ku arkay niman aan aragnay inay yihiin annakoo meesha safar kaba soo gallay niman odayaala oo aan garan weynay war maxaad haydeen niman reer baryay ahaayeen oo cali saleebaana oo leh geelashiiba aagga yimi oo weliba sii gudbay xuduudkana kaba sii tallaabay waray dadkaas dhinac walba ha ahaatee ilaahay buqcadda tan dhowrkii hadda samanayna soo maray ilaahay roob badan oo fiican buu inagu manaystay waxaa hadda loogu soo guurayaana roobkaa qura maahe war dadku dhulkoodan iyo deegaankooda ummaddana waa iska xilqaami jirtay wargeedka weyn yaan la goyn war dadku xitaa haddii ay meelo ka guuraan digaday gubi jireen war ummaddana ummad hantidoodaas ku mintidayay ahaayeen war hadda lafteedana haddiiba marti laynoo yahay oo ilaahay dadkaa baday oo iskeen baday in la soo dhoweeyey sidii haddaba la yeelay waa xaq waa ku mahadsantihiin waa laydiin ogyihiin kuwa xitaa maamuladoodu kollay kaa somalilan baan anugu ka warhayaa waa ka mahadnaqayaa waa u ogyihiin xukuumad khaatumo la yidhaah wax badanayba gaadhsiinaysaa maba jirtee war dadkaa u gurmaday waa ku ammaanan tihiin waana laydiin ogyahay taa intaasaan ka odhan lahaa midda kalena waa iyadan kolley waxaa aada loo xiisaynayay ama khaatumaha lagu taageero ama hala garab ordayo waa u ognahay wardada abaal loo galaanu nahay waa u ognahay ninka ka dambeeyey ee isna koofi maxamed aadan isaguna dagaalka lagu qaaday iyo shiddada la mariyey innaka wixii dhexdeenna waa meesheeda iyada hadda kamaba doodayno lagaba soo gudub laakiin ninkaa war bal adii nin kuula duuban oo dantaadii wada in odayaal la sheegayo magaaladatan joogaa inay u ergeeyeen oo ashkateeyeen oo yidhaaheen ninkaasu fidnu wadaa annakaa magaaladan buuhoodle odayaasheeda ah annakaa xukuumadda puntland waa gaaladu dagaalami jirtay oo dagaal 30 year war la odhan jiray 30 sano uu dagaalkaasi socday yaa qolyo aan la filayn inay israacaan yaa israacay gaaladii waagaa joogtay ingiriisku weligii propagandada uu ku fiicnaa wuxuu yidhi kuwa is urursaday waa unholy alliance waa kuwo aan khayr lahayn waa is urursi khayr darro ka muuqato wala is urursigaa odayaasha sheegaya buuhood iyo ku puntland waday unholy alliance kaasay ahayd waagaa la sheegay ka soo gudubnay haddana waxaa inala gudboon oray marka mingisku inagu kackaco ana waxaanba moodi jiray ardooyinka inagu kaco ardooyinka waxooga ma badna laakiin mingisku waa xujo weyn oo haddii la doomo waxaa la yidhaahaa dibiyaa la qalaayo qaar baa la fuulayo saarka iyo mingisku arrimahooda ma sahlana horay marmar ardooyinku inooma kacaana mingis baa inagu kaca markaasaynu isla gadoodnaa war ilaahay mid buu inaga badbaadiyey hadda ilaahay waxaan ka baryaynaa bal mingiska iyo abaarahaba dhinaca inuu naga mariyo waxaan u soo noqonayaa wadahadallada annaka iyo somalilan war wadahadallada cidaan iyaka ahayn oo leh maamulka khaatumaan oo ictiraafsannahay oo la fadhiisanaynaa horta ma haysaan war puntland miyaad ka haysaan
horta shirkan wax reer Puntland hadday joogaan waa soo dhawaynaynaa laakiin balde dadaala oo xoogaa raganimada meel ay ku jiraan ka raadiyay bal ka marxaati ka oo war Puntland miyay tiri Soomaaliya wuxuu ahaa khaatimaano maamul ahaan oo ictiraafayna oo la xaajoonayna miyay yidhaahdeen war kor iyo hoos midna miyay u yidhaahdeen kama hayna Soomaa Hargeysa warka aan ka haynaa waxa weeye war hadda macnaheedu maaha waa wada hadlaynaa waa heshiinay aan ku celiyo waliba hoostana aan ka xariiqo waa wada hadlaynaa macnaheedu waa heshiinay maaha war ma aanan heshiin war arrimo culus baa noo yaala war ilaahay waxaan ka baryaynaa qadiyad xaq aanu leenahay inuu nagu taageero dadkaasuna caqli dadkaasuna caqli iyo xikmad inay isticmaalaan dhulkooda duulamaad kuma nihin magaalooyinkooda duulamaad kuma lihin khayraadkooda duulamaad kuma nihin waxa iyaga aanu leenahay ee hanti ma guurta ah taariikhaan leenahay mustaqbal aanu dadka iyaga u rabno intaanu u doodaynaa ee aanan marnaba ka ogolaanaynin mudahano iyo maalin dhowd waxaan maqlaynay aan soo marnay magaalada la yidhaaho Jabuuti waxaa la yidhi waa marino wixii aaga Sool iyo Sanaag ka taga ee mas'uuliyiina waxay ku sii raad gataan Jabuuti ka bacdina toos bay halka Hargeysa uga galaan wala dad reer Buuhood la yidhi haddaan qancay haddaad halkaa ka geli weydeen anigu haddaan qancay inaydan Hargeysa u socon waruma soconna Hargeysa war waxaa hubanti ah in badan oo magaalada dhexdeeda humbaaleynaysa oo qaarkood weli boorkii ku yaala safarkay ka soo galeen Garowe war ma ka warhaysaan Coodinle inay tageen oo Somaliland ugu tageen war ma ka warhaysaan Yagoori iyo Hargeysa inay tageen Laascaanood war hooy cidda sahanka dirsatay ee aan ka warhayno balaa waxay ka dhacday daanaku hadda oran mayno ku qariya guncade waroy nimankaas annaku wada hadalka iyagu waa arrin miiska taala war waxa yar ee dhaqaale ee aanu u helo ee dad baa mushtarihi noogu deeqeena war xilkeedii waa iska wareejinay iyadoo oo booyad loo qaybiyay yaanu iyadoo qoran iyo iyadoo sawir oo videoba aanu ummadda tusayna war kuwa hadda lafteeda loo soo dhiibay ee Buuhood loogu soo dhiibay war wax siigo oo booyada oo miyaad aragteen war hadda dad loo soo dhiibaa jooga oo aad ogtihiin war dadkan dulqaad badana war ilaah meeydan ka baqayn war kuwaas oo kale haddaan maxkamad la soo taagaynin af Ingiriisiga waxaa lagu yidhaahaa name them and shame them war hal la magacaabo oo hal la fadeexeeyo war intaa quran ku aadi weyni war haddii aynan inaku oran waa khalad hadda kuwa waxay doonayaan waxa laga yaabaa siyaalo hore oo ay ugu badan jirtay waa baleeyay waa ka waantownay faragelintii waa idinka daynaynaa qodobada laga hadlayayna tahay war xoogaa loo barbartay oo midhay la isleeyahay laaska yari waa gurayahay gabaabsiga war boqolyaha loo soo dhiibay hadda ma magacyaan idin siiyaa war soo ma ogidin inteenu habaarayna ku xamar jooga haddaynan magacaabi karaynin war kor iyo hoosba ma u habaarnayana maya hadda reer Buuhoodlow hadda xeerkaasu hadduu saah yahay hadda ha dhowto
هذا هدو اسمه ايضاينه bahashatan eedu ay salka ku hayso meelo baas annagu hadda siiba wadwadi maynay waraynaku wixii naloo dhiibay waana naga ballan qaaday waxna siiyeyna dad baayac mushtara oo qaarkood hawiyay yihiin qaarkood isaaq yihiin qaarkood dhulbaantan yihiin yaana siiyey ama naga ballan qaaday inta naloo dhiibay waxa la yiraahdaa waa la idinku tijaabinayaa war 40,000 waxay u dhowdahay 400,000 inay inoo dhali doonto 400,000 inay dhali doonto